tobaneeyo sano oo ay xoog iyo xeelad weliba oo ay ku heli kareen isugu geeyeen samaynta ilo dhaqaale oo adag si ay u sii cumriyaan una sii wadaan ka been sheegidda diinteenna suuban iyo daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed ee qiimaha badan. Al-Shabaab hadda waxa ay luminayaan dhammaanba fursadihii dhaqaale ee ay heli jireen. unugyada wax dhagadhageeye ee xuuraan, kuwa loo carbiyey dabagalka dhaqdhaqaaqooda tiknoolajiyadda iyo kuwa saqda dhexe u daata fariisimaha nabadiidka ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo iskaashaday ayaa suurtageliyey in Al-Shabaab wajahaan dhaqaale xumo baahsan xilli dalka oo dhan ay ka curatay duufaan kacdoon oo ka dhana iyaga. jihooyinka uu dagaalku ka socdo argagixisadana lagu jabiyey waxa ay kala yihiin howlgalka dagaalka tooska ah iyo beegsiga horjoogayaasha oo horseeday in kooxda gacanteeda ay ka baxaan degmooyin iyo deegaano badan oo ay maamuli jireen. cunaqabateynta dhaqaale ee lagu curyaamiyey awoodda maaliyadeed ee kooxda iyo dagaalka warbaahinta oo qudhiisu dhowr waji leh. xayiraadda mareegaha warbaahineed ee ay ku faafi jireen dacaayadaha iyo cabsigelinta shacabka. wacyigelinta bulshada oo sababtay inay toos ugu biiraan dagaalka ayna diidaan bixinta dhaqaalihii ay ka qaadi jireen Al-Shabaab iyo soo bandhigidda sida ay u wiiqantay itaal ahaan kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab. dhacdooyinka xididada u siibay jiritaanka kooxda cimrigoodana soo gaabiyey waxaa ka mid ah hay-adaha ammaanka gaar ahaan NISA oo labalaabtay shaqadeeda gudaha caasimadda gacantana ku dhigtay unugyo maleeshiyaadka u qaabilsanaa cabsigelinta shacabka. NISA sidoo kale waxa ay beegsatay ku dhowaad 20 qof oo cadaalad u doontay argagixisada iyo dad si hoose ula shaqaynayay tallaabooyinkaasi oo soo dedejiyey tabardhigga kooxda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiye ka dharagsan ficilada gurracan iyo dhagaraha kooxdan waayo aragnimo ku filanna ka haysta dagaalkeeda ayaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagay sida ay lama huraanka u tahay in la wajaho dagaalka kooxda. meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraya tahay meel dhaxo la istaago lagana adkaado iyo inuusan jirin cadow kaga qatarsan ummadda Soomaaliyeed jiritaanka Al-Shabaab. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna tallaabooyin degdeg u qaaday irdixirka kooxda waxayna si cad u sheegtay inay shartiyada kala noqon doonto nuutayooyinka macluumaadka muwaadiniinta u gudbi jiray Al-Shabaab iyo bangiyada ay dhaqaaluhu u maraan. maadaama sida muuqatay laga adkaaday Al-Shabaab ayna ku jiraan rafashadii u dambeysay ee lagu tirtirayay dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ka qayb qaataan sifaynta haraadigooda si mustaqbalka dhow iyo kan fogba qof waliba ugu faano inuu qayb ka ahaa halgankan taariikhiga ah ee ciribtirka mooryaandiimeedka iyo argagixisada Al-Shabaab.